subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. waa subax talaado ah bisha February waa 16 sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble oo dhinaca muuqaalka kaga qayb galay shir shalay galab magaalada Baydhabo uga furmay guddiga farsamo ee qabanqaabinaya kulan qaran oo laga yeesho doorashada Soomaaliya. shirka markaan furnay ka bacdi isla markiiba waxaa talooyin iyo nagu soo biiray oo xagga fogaal arag kamarada naga soo biiray ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo jihada iyo noo tilmaamay waajibaadka laga fadhiyo. waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Nairobi oo shalay galab lagu aasay senator Maxamed Yuusuf Xaaji oo horey u soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya. qof caynkee ah ayuu ahaa goordhow ayaad maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idin haynaa falanqayn ku saabsan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo dacwadii golaha Senatka u qaaday sabtidii la soo dhaafay go'aan ku gaaray in dacwadaasi lagu waayay Donald Trump iyo qodobo kale. marka hore warkii caalamka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. mahadsanid Caashuud. xaalad barkow ah oo in badan aan la arag ayaa gobolka Texas ee koonfurta Mareykanka ku keentay in dalabkii korontadu uu aad u bato, taas oo hanaankii koronto qaybinta ee gobolkaasi culays xoog la saartay Isniintii shalay. arrintan ayaa keentay in shirkadihii korontadu ay si kaltana adeega u siiyaan macaamiishooda, taas oo 3 milyan oo macmiil ku keentay inay koronto la'aan noqdaan. qabowgan daran ee jibaaxay gobolka Texas ayaa gaaray dhinaca waqooyi ee dalka dariska ee Mexico, halkaas oo maamulku sheegay in 4.7 milyan oo macmiil ay Isniintii shalay koronto la'aan ahaayeen. 2.6 milyan oo macmiil ayaa markii dambe adeegu soo noqday. warkii caalamkuna waa naga intaas. mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warka caalamka nala soo codsiinayay. dhageystayaal waxay noo soo socdaa falanqayn ku saabsan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo dacwadii golaha Senatka u qaaday go'aan ku gaaray in dacwadaasi lagu waayay. hase haatee aan ku horeyno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhinaca muuqaalka waxa uu kaga qayb galay shir shalay galab magaalada Baydhabo uga furmay guddiga farsamo oo qabanqaabinaya kulan qaran oo laga yeesho doorashada Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh. galinkii dambe ee shalay ay ahayd markii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay uu shir uga furmay guddiga farsamada qabanqaabada shirka wadatashiga qaranka, kaasi oo dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. guddigan farsamo oo kulankoodii ugu horeeyay yeeshay ayaa waxay isugu jiraan xubno ka socday dowladda federaalka, kuwa ka socday maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo habka fogaan aragga uga qayb galay furitaanka shirka ayaa guddiga farsamo u sheegay in Soomaaliya ay ka sugayso sidii xal looga gaari lahaa doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. guddiga farsamada qabanqaabada shirka wadatashiga qaranka ayaa guddoomiye iska doortay, waxayna guddoomiye ka dhigteen wasiirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. intii uu kulankooda socday guddiga farsamada waxaa sidoo kale ka qayb galay kulanka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo guddiga ugu warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray iyo waayo aragnimadiisa shirarka looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka. wasiirka dastuurka dowladda federaalka Saalax Ahmed Jaamac oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka ayaa saxaafadda uga warbixiyay shirka Baydhabo uga furmay. waxaan rabnaa halkan inaan warbaahinta ku wargelino in shirkii guddiga farsamo ee ka soo baaraandegayay soo dhameystirayay arrimaha doorashooyinka iyadoo laga duulayay heshiiskii 17 Sebtembar ay madaxda qaranku saxeexeen inaanu maanta ka furnay magaalada Baydhabo saacadu markay ahayd 5 galabnimo. shirka markaan furnay ka bacdi isla markiiba waxaa
talooyin iyo nagu soo biiray oo xagga fogaal arag kamarada nagaga soo biiray ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo jihada iyo noo tilmaamay waajibaadka looga fadhiyo iyo arrimaha loo baahan yahay xal laga gaaro inta ka bacdi shaqadeedii baan sii wadanay qodobadii saddexda ahaa ee la isla ogaa baanu ka baaraandegaynay hawshana si wanaagsan ayay hadda noogu socotaa waxa iyana kale xusid mudan in madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Laftagareen uu halkan noogu yimi isna uu dardaaran iyo hogga tusaaleyn iyo intii uu soo joogay arrimaha wada xaajoodka xagga sare markay noqoto madasha wada tashiga ayuu nala wadaagay inihii aanu fadhinayna hanaan aanu ku wada shaqayno iyo qiyamkii baanu isla meel dhignay hawshana ilaa hadda si habsami leh way noogu socotaa guddoon iyo guddi baanu yeelanay si wada ogola oo isu tanaasul ku dhisan ayaanu go'aamadan u gaaraynaa shaqaduna ilaa hadda si wada jira baan u wada wadnaa waxaanuna ku rajo weynahay in caawa ilaa ka wada inaanu shaqaynaan rabnaa iyo biriba inay awshu intay naga soo dhammaato insha allahu tacaala dalkani uu doorasho wanaagsan oo si nabada ku dhacda oo sunnihii hore ee jiri jiray aynu sii marno saasaan ku rajo weynahay guddigan farsamo oo ka kooban 14 xubnood ayaa ka shaqayn doona qabanqaabada shirka golaha wada tashiga qaranka Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo dhinacooda maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay go'aankooda ku aadan ka qaybgalka shirka oo ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo ka digay in haddii doorashada dib loo dhigo ay taasi dhibaato keeni karto waxaa sidoo kale maamulku uu ka hadlay go'aankooda ku aadan xaaladda gobolka Gedo iyo shirka guddiga farsamada ee hadda ka socda magaalada Baydhabo wasiirka warfaafinta Jubbaland Engineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa waxa arrimahaasi ka wareystay wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad siyaasadda Soomaaliya xaalad xun bay ku jirtaa waqti xun bay ku jirtaa xukuumadii oo dawladii oo waqtigeedu dhamaaday in ay doorashadii dhici weydo waa arrin xasaasi ah oo keeni karta nabadgelyo xumo cid walbana u guntatay si arrintaasi loo qaban lahaa shirkii ugu dambeeyay Dhuusamareeb ee ahayd in heshiis ka dhacana ma aynan noqonin watii lagu soo kala tagay oo madaxweynihii hadda xilkiisu dhamaaday uu ka soo tagay ha ahaatee weli dadaaladii ayaa lagu jira annaguna diyaar aanu nahay in ay qabsoomaan oo ay doorashadu si nabada ku dhacdo because muddo xileedkii oo dhammaaday inuu wadanku intaasi sii socdo aynan dhicin doorashadii waa dhibaato weyn oo wax walba keeni karaysa waxaanu soo jeedinaa ka maamul ahaan in lagu qabto xamar laakiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka biyadiiday wuxuu haddana soo jeediyey in Baydhabo la isugu diro maxaa la yiraahdaa guddigii farsamana waana ogolaanay wax shaqo ma arkaynin waana dirnay waxa baxay wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka caafimaadka waayahay horey waxaad u sheegtay wasiir go'aanka maamulka Jubbaland inuu ahaa in shirkaas aydan ka qayb galaynin ilaa isbedel la sameeyo marka maxaa iska bedelay ma aanan diidin marnaba shir ma aanan diidin anagu waxaanu kaliya soo jeedinay haddii ay Puntland ka cudur daaratay in lagu qabto shirkii Garowe in xamar lagu qabto shiddo aynan jirin oo ay wada joogaan dhinac walba laga helay shirkuna uu fududaanayo laakiin wuu hor istaagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuu hor istaagay arrintaasi mana uunan rabin in xamar lagu qabto sababtaan uu garan maayo marka hadda guddiga farsamada ee haddana soo jeediyay way xuntahay in lagu jiro aadan oo isjiid xagga laguma qabanayo marka mar haddii meeshii laga wada helayay ka raqiisnayd oo ka fiicnayd oo la ogyahay inay wax ku dhammaan karaan oo la soo jiidi kara dadka haddii laga cararayo ma garanayo marka meesha kale laakiin haddana waxay noqotay inaanan ka hor imaanin maxaad isleedahay way ka soo bixi karaan shirkan hadda Garowe madaxweynaha dowladda Soomaaliya ku dhawaaqay iyadoo weli ciidamadii aad ka doodayseen iyo arintii gobolka Gedo ay weli taagan tahay waxaa saddexda qodob lagu muransan yahay ay ka mid yihiin haddii ummaddu ay cadaalad tahay waxaan ma aynan dhicin oo sharciga la raacayo sharci baa la sameeyay waxaa la yiri maamuladu ha ismaamulaan haddii federaalku uu maamulkiisa faragashado oo ciidamadii xoogii uu ku soo kaxeeyo oo uu qabsado gobol kamid ah
oo dee loo kala garqaadi waayo waa dhibaato wey. marka waxaan soo jeedinaynaa ama aan leenahay yaanan laga daalin, annaguna diyaar baan nahay annagoo fadhina oo dee hawshii ku guda jira ayaa uu shirkii federaalku ay ka soo tageen. marka haddana diyaar baanu nahay annagu mar walba xitaa kuwa tanaasulaan ahayn oo dhinaca fiican inay waddanku doorasho ka dhacdo xeerinaya fiirinaya annagoon eegaynin dhibaatadan haysata. haddana sidii iyo si kasii fiican baan ku wadayna hadduu ilaah yidhaahdo. waa ayna tageen, waxaan rajaynaynaa in ay dhammaato hadduu ilaahay raalli ka noqdo. waana u ducaynaynaa shirka insha allah. kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Jubbaland injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo u warramay wariyaha VOA magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. haatanna dalka Mareykanka madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump ayaa dacwadii golaha sanadku u qaaday toddobaadkii hore ay sabtidii la soo dhaafay go'aan ku gaareen in dacwadaasi lagu waayay madaxweynihii hore Donald Trump. wariyaha VOA Caashe Ibrahim Caashuud ayaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebrow oo alaaba ka faalooda siyaasadda Mareykanka ka wareysatay sida xukunku u dhacay. waraysigiina sidan ayuu ku bilowday. waaba sugla Cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo ma xisbiga dimuqraadiga xeer ilaalinta ay soo xuleen ayaan cadeymo ku filan oo senatarada wada qanciyo keeni waayay mise qareenada Trump ayaa xarfaan ahaa oo eedeymihii lagu haysay Donald Trump baddaas ku wada shubay? maasan Caasha, haddii marka hore dadka aan wada xasuusino dacwadan toddobaadkii hore dhacday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Congress-ka Mareykanka waxa ay ku saabsaneed eedeymo loo soo jeediyay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ku salaysnaa duulaankii 200 qof oo kumanaan gaaraya ay ku qaadeen aqalka Capitol Hill, dadkii ku dhintay burburkii ka dhacay halkaas, argagixii iyo cabsidii la gelisay xildhibaanadii u fadhiyay inay ansixintii ugu dambeysay marsiiyaan doorashadii uu ku guuleystay Biden ee Trumpna uu diidanaa. marka halkaas ay sheekada ka soo bilaabatay. haddaan se u soo noqdo jawaabtii su'aashaada, xeer ilaaliyayaasha dimuqraadigu ay soo xusheen waxaan isleeyahay wax alla wixii ay sheegi kareen ee dacwo ah oo dad ay ku qanci kareen way soo bandhigeen. alla ilaahay dacwooyinkiina si tafatiran oo muuqata oo aan biyo kaba dhibcaana ayay u sheegeen oo dadku ay intii dhageysanaysay sida saxaafadu ay ka marqaacday aad loola dhacay oo ay ahayd wax dadka lagu qanciyo. mana ahaynba wax dadka in lagu qanciyo ay adkay, waayo dadka Congress-ka ku jiray xildhibaanada ayaa markhaati ahaa oo aqaladii lagu soo dumiyay oo iyaga naftooda khatar gashay oo dadka duulaanka qaaday laftooda qaar badan la xirxiray ay sheegeen inay u socdeen inay joojiyaan ansixinta u dambaysa ee Biden uu aqalka cad ku galayo, ayna markhaatina uga dhigteen oo sheegteen iyagu ay sheegayaan in Trumpna uu soo diray ayna u hiilinayaan dhankiisa kadib markii uu sida ay sheegayeen oo Trump uu yiri waa la idinka xaday doorashadii oo si sax uma dhicin. marka ma adkay si weyn bay xildhibaanadaasi dhinaca dimuqraadiga u soo bandhigeen. hase ahaatee dhinaca Donald Trump kuwii ka socday looyaradiisa ahaa qareenadiisu maalintii ugu horreysay runtii way kala daateen oo waxyaabo badan baa iskaga dhex daatay. hase ahaatee maalmihii dambe way soo kabteen oo xoogaha waxaad moodaysay inay intii hore aad uga roonaayeen. laakiin waxa saldhig u ahaa waxa kan waxay ahayd 100 senator oo kontonna ay yihiin haatan dimuqraadi, kontonka kalena ay yihiin jamhuuri, in ay laga helo 3/2 oo u dhiganta 67 senator inay u codeeyaan in dambiga uu leeyahay madaxweynihii hore iyo in kale. taas ma dhicin oo 57 ayaa u codeysay in dambiga uu leeyahay, halka 43na ay u codeeyeen in uu dambiga una gelin. marka waxa markana meesha ka dhacay waxay ahayd jamhuuriga 43 kamida inay markana diideen, 7 kamida oo jamhuuriguna ay u bareereen inay la saftaan kontonkii dimuqraadiga oo ay ka markhaati kaceen. taariikhdana waa markii ugu horeysay ee dacwad noocan oo kala ah labada xisbi tira inta leeg ay isku raacaan oo ay madaxweynaha la dacweynaya ay dacwo ku soo ogaan. hase ahaatee Caashay, natiijadani dimuqraadiga waxay u ahayd nabaraad filaysay naxdin ma laha. senator Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha senatarada xisbiga jamhuuriga waxa uu kamid ahaa 43ka senator ee u codeeyay in aan dambiga lagu qaadin Donald Trump. laakiin haddana khudbadii uu jeediyay markii dacwadii la soo gabagabeeyay
waxay xambaarsanayd dhaleecooyin aad u culus oo Trump ku wajahan marka muxuu ugu codeeyay in Trump aan dambiga lagu qaadin haddii uu aaminsan yahay eedeymaha uu Trump u jeediyay codeyntii kadib haddii caashay aanu marka hore dadka xasuusino Mitch McConnell waxa weeyaan ninka hogaaminaya golaha sanadka ee jamhuuriga 4 sano soo dhaaftay ee Donald Trump uu madaxweynaha ka ahaa dalka waxa uu ahaa Mitch McConnell hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka oo labada aqalba isaga isku hogaaminay sanadkooda maadaama waqtigaasi jamhuurigu ay ka tira badnaayeen senataradooda kuwa dimuqraadiga laakiin doorashadiina soo dhaaftay ayaa dhibco badan laga helay oo xildhibaano badan laga wareejistay taasna ay keentay in xisbiga jamhuurigu uu imika konton kaliya leeyahay dimuqraadiguna uu konton leeyahay laakiin haddii hal dheeri loo codeeyo ay dimuqraadigu gacanta sare lahaanayaan sababtuna ay tahay iyadoo madaxweyne ku-xigeenka jooga mar walba uu xisbiga iskale kontonka uu raaco sidaa daraaddeedna aqlabiyadda imika waxaa iskale xisbiga dimuqraadiga haddii se aan usoo noqdo sheekada waxa isaga aad iga weydiisay dad badan waxa ay qabaan caashay in haddii uu hadalkii uu jeedshay ee uu sida daran uu wax uga sheegay Donald Trump inkastoo uu isagu uu raacay 43kii u codeeyay inaan dambiga la saarin madaxweynaha haddana khudbadii uu jeeshay ee sida baan uu wax uga sheegay in Donald Trump dad badan baa qaba haddii uu khudbada jeedin lahaa intaan codeyntu dhicin in natiijada codku uu isbedeli lahaa oo qaar badan oo haatan laga yaabo in xagga ay raaceen Trump ay ka codeyn lahaayeen oo amaba la heli lahaaba 67 marka ma dhicin taasi sababta uu yeelana way iska cadaho Mitch McConnell mar rabo inuu luusho hogaanka uu haysto 2 sano kadib markii la gaaro sanadka 2022 doorasho dhacaysa oo doorashadii xilliga dhexe ahayd waxaana dhici karta in uu sanadka mar kale ee jamhuurigu ay hogaamiyaan haddii hogaanka ay qabsadaan oo tiro kala helaanna waxaa suurtooda markaasi in isaga uu markaa uu halkii uu awal joogay hogaankiisa hore ku noqdo taa daraadeed iyo 43 markan oo imika u codeeyay ee diidan in markan oo dambiga la saaro madaxweynaha iyo isaguba waxa ay isha ku hayaan 70 milyan ee u codeeyay Donald Trump oo bari uu Trump ku soo kicin karo oo taalifteedana way ka cabsanayaan hase ahaatee xaalka Mitch McConnell waxa uu xasuusiyay cashay orahdii Ingiriiska ee ahayd you cannot keep your cake and eat at the same time keegaaga ma haysan kartid mana cuni kartid ama waad haysanaysaa oo waad daawanaysaa ama waad cunaysaa oo calooshaad u diraysaa marka ma dhicin laba shay oo aad u sii kala jeeda ayuu sameeyay inuu u codeeyo inaan Donald Trump lagu qaadin dambiga isla markaana uu soo istaago oo qalbigiisa wuxuu u sheegayay iyo wixii uu dareensanaa uu ku hurgufo oo uu ku eedeeyo oo xataa mararka qaar uu gaarsiiyay heer dimuqraadiga qaarkoodba aanay ka hadlin oo si weyn uu u dhaleeceeyay uuna ugu eedeeyay Donald Trump inuu isagu dambiga lahaa waxaana uu isagu ku fasiray inaanu u codeyn oo codkiisa uu 43 ku raacay arrimo xag farsamo oo uu yiri dastuurka ayaan qabin in madaxweyne ka taga aqalka cad dambi lagu qaado marka waxaan isleeyahay laba caas laba-labeenta uu galay Mitch McConnell waxa uuna ka dhigan tahay beerka jecli xeeda jantay mar haddii dambigii lagu waayo Donald Trump dacwadii lagu qaaday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Congress maxaa tan xiga dacwadan maxay taariikhda Trump ku reebaysaa Trump se maxaa laga filayaa inuu sameeyo sanooyinka soo socda taariikhda Donald Trump waxa arrinkani dambiga lagu waayo ay uga dhigan tahay waa marka hore hadduu doono uu tartami karaa 2024 oo markan go'aankii ka reebi lahaa waa lagu waayay balse waxa ka sii daran 2022 doorashada soo socota 2 sano kadib galaangal badan buu u yeelan karaa oo gaar ahaan 7 senator ka soo horjeestay yiri hal lagu xukumo iyo 10 iyaguna dhinaca aqalka hoose maalintii la weydiinay iyaguna ku xukumay oo yiri in waxaan doonaynaa in lagu qaado dambiga intaba inuu ka ololeyn doono oo ka soo horjeesan doono oo sidii lagu yaqaanay qofka isaga ismaagaan oo cirka la gali doono taasi waa mid laakiin guud ahaan ra'yil caamka Mareykanka wax badan ayay doodii ay soo bandhigeen xeer ilaaliyaashii xisbiga dimuqraadiga ay ka bedeli kartaa baa la leeyahay saxaafadda Mareykanka waxay si weyn u hadal haysaa in xataa taageeradii badneed ee 70 milyan oo codeeyay oo qaar badan oo weyn doono sharaftii iyo magaciina ay wax badan ay iska dhimi doonaan kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yebrow madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
oo caashe ibraahim caashucuud la falanqaynayay dacwadii lagu waayey madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. الله naxariistay waxaa magaalada Nairobi shalay galab lagu aasay Senator Maxamed Yusuf Xaaji oo horay u soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya xilligana ahaa senator deegaanka Gaarisa u matalayay baarlamaanka dalkaasi. haddaba warbixin kooban oo ka hadlaysa taariikh nololeedka Senator Maxamed Yusuf Xaaji waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen. Allah u naxariistay senatarkii ismaamulka Gaarisa Maxamed Yusuf Xaaji ayaa waxa uu dhashay sanadii 1940kii waxaana ku geeriyooday da'da 80 sano jirka. waxa uu horay u soo noqday isuduwihii ammaanka ee gobolka Rift Valley intii u dhaxaysay sanadii 2008 ilaa 2013 waxa uu ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dalka Kenya. sanadii 2012 ayaa waxa uu si ku meel gaar ah u noqday wasiirkii amniga ee dalka Kenya. sidoo kale waxa uu xildhibaan ka soo noqday deegaanka Ijara ee ismaamulka Gaarisa laga soo bilaabo sanadii 2013 ilaa ay imika uu geeriyooday ayaa waxa uu ahaa senatarka aqalka sare ku matala shacabka Gaarisa. waxaana lagu xusuustaa inuu kaalin weyn ka soo qaatay arrimaha amniga ee dalka Kenya. haddaba xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ay ahaayeen saaxiibada waqti badan ay soo wada shaqeeyeen ayaa waxa uu ka sheekeynayaa taariikhdiisa oo kooban. mudane Maxamed Yusuf Xaaji anigu waxaan aad isu baranay markii anigu aan siyaasadda Kenya ku soo biiray oo xildhibaan ka noqday deegaanka Kamakuuji. dadkii ugu horeeyay gacan igu siiya doorashadaasi markaan ka qayb galay bay ahay. wixii ka dambeeyana hadda baarlamaankan si fiican isugu baranay asagoo wasiirka gaashaandhigga noo ah marna ahaa wasiirka arrimaha gudaha. markaan run ahaantii waxaan ku bartay inuu ahaa nin khubaro ah nin waayo aragnimo aad u dheer hawshiisa soo bilaabay waqtigii gumaysiga Ingiriisku waddanka joogay oo uu maamul deegaan ku bilaabay maamul gobol markii dambena uu gaaray heer ah. wixii ka dambeeyana uu siyaasad galay oo uu noqday wasiir ku-xigeen iyo wasiir ka tirsan dowladda oo jagooyinkii ugu muhiimsanaayee nin Soomaali uu ka qabto dalka Kenyana qabta. wasiirkii ugu horeeyay gaashaandhigga iyo wasiirkii ugu horeeyay arrimaha dibadda arrimaha gudaha khaasatan maamulka gobolada iyo biliska. wixii ka dambeeyana waxaan wada ahayn xildhibaan aan wada ahayn asagu wuxuu ahaa xildhibaanka Ijara laga soo doorto. wixii ka dambeeyana wuxuu noqday senatarka. marka nin waayo aragnimo ballaaran leh nin aqoon badan leh nin xilal aad iyo aad u culus soo qabtay buu ahaa. laakiinse waxaa kaleeto anigu ku bartay inuu ahaa nin aad iyo aad u degan qalbi fiican si sahlanna aad kula doodi karta waxna oga doodna la geli karto. waxyaalaha kaleeto aad ugu fiicnaayo aad ugu qiimeeyay wuxuu ahaa nabadoon. nabadu aad iyo aad culays badan iska saaray waddanka gudihiisa mushkilooyinka qabaa'ilada haysta xalintooda. Turkana dhulka Turkanada haddii la eego Marsabit Mandera Wajeer Gaarisa nin lagu kalsoon yahay oo cadaalad ku shaqeeyo oo laga dambeeyo oo go'aankiisa dadku ay raacaan buu ahaa intiisa badan. xagga baarlamaanka iyo dowladda xaggeedana hadda nin aad u adag buu ahaa oo fikradiisa laga dambeeyo. markii dambena anagu waxaan ka wada qayb galnay isaguna guddoomiye oo ahaa guddi loo xilsaaray dowladdii Mwai Kibaki iyo Meles Zenawi ay u xilsaareen sidii loo dhexdhexaadin lahaa oo waan loogu heli lahaa mushkilada ka taagan gobolka Soomaaliyeed. dhowr sanana hawshaasi waa ku jirnay. markii dambena kartidiisa iyo waayo aragnimadiisa ayaa suurtagelisay inaan xal u raadino mushkiladaasi oon isu soo dhaweyno dowladda Itoobiya iyo jabhadda gobolka Soomaalida ka jirtay markaasi dagaal kula jirtay xukunka Itoobiya. ilaa goorma ayuu xanuunsanaa marxuumka?
haddii aad ka warqabtay ilaa bishii 11aad wuu xanuunsanaa bishii 12aad baa markaa isbitaal la dhigay bishii koowaadna waxaa loo qaaday dalka Turkiga halkaasoo uu muddo 6 toddobaadna ka maqnaa. Allah u naxariistay aaskii senatarkii ismaamulka Gaarisa Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto, hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda ismaamulka Gaarisa ee ka tirsan dowladda dalka Kenya, waxaana lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee Langata. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi. haatan ku soo dhawaada heesta xayaat iyo fanaanka xasan aadan samatar doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortay ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortay umadiga nin caashaqa ina soo dhaweeyey umadiga nin caashaqa ina soo dhaweeyey xayaadin haddii baadsada adiga igu dhaliyey xayaadin haddii baadsada adiga igu dhaliyey dabalkaaga xagalayey adeegiyo labinjalayey. heestaasi xayaad iyo codka fanaanka xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga VOA. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. America hawdi adata yungurido adonda gumarida America hawdi adata yungurido America hawdi adata yungurido gumarida Thank you.